howlgalkan ay fuliyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan taliska qaybta 27aad ee ka howlgala deegaanada Hirshabelle ayaa ahaa mid ka dhan ah ururka Al-Shabaab laguna xaqiijinayay amniga wadada u dhaxaysa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo muddooyinka dambe ay ka dhacayeen weeraro. howlgalka waxaa si gaar ah looga fuliyay oo ay ciidamada gaareen deegaano badan oo la tuhunsanaa in ay joogaan dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab waxaana ka mid ah deegaanadaasi Jariirow, Gololey Moblin, Dhumaley, Madaxgisi, Lafagare, Saarsaare, Cadiga Moblin, Buulamareere, Doom Cadale iyo Gumarey. ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa lug ku soo maray inta badan deegaanadaasi waxaana howlgalkooda horkacayay oo hogaaminayay ciidamada taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Generaal Axmed Maxamed Cali Sow Treedisho waxaanu ku wehelinayay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe. sidoo kale intii uu socday howlgalka ayaa Generaal Treedisho wuxuu kormeyn qiimeyn ah ku tagay xarumaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ku leeyihiin wadada u dhaxaysa Jowhar iyo Balcad gaar ahaan deegaanada Raaxoy, Qalimow iyo Garsaale. ugu horeyn taliyaha guutada saddexaad ee ciidanka qaybta 27aad Abshir Maxamuud Maxamed Shataqi iyo kusimaha gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh Xanjow ayaa waxay ka warbixiyeen howlgalka ciidamada ay sameeyeen. maanta waxaan sameynay oo soo booqday taliyaha qaybta wuxuu kormeerayay aagaga guutada saddexaad difaacameeda waxaa kulus aan sameynay waxaan tagnay dhowr tuulo oo ku soo sameynay mataan ay sheegeen kormeer wuxuu fiirshay difaacameedka qaabka ugu jiraan aad iyo aad ugu mahad celinayna taliyaha qaybta maadaama difaacameedkii intuu yimid kormeeray oo sameeyay wixii ka qaldanay oo ka saxiyay howlgal aan aad maalmahan aan qorsheynin oo sameynay anagoo kaashanayna taliyaha qaybta 27aad taliyaha guutada saddexaad iyo saraakiisha dhammaan ciidamada qalabka sida waxaan tagnay ilaa iyo 9 tuulo laga bilaabo ceelka Geelow, Gololey, Raaxoy, Cadayga, Saarsaare ilaa iyo Madaxgisi aan tagnay intaas oo ilaahay mahadiis waxa inta cadawga markay maqlaan in ciidamadii qalabka sida ku soo socday mar meesha ka dambaysa ka sii cararayeen. dhinaca kale Generaal Axmed Maxamed Cali Sow Treedisho oo ah taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee ka howlgala deegaanada Hirshabelle ayaa sheegay ciidamada inay sii wadi doonaan howlgalada ka dhanka ururka Al-Shabaab. maanta waxay ahayd maalintii afraad ee howlgalkan ku dhex jirno waxaan qabanaynay waxay ahaayeen wax aan maxaan ku iraahdaa Allah ugu dhawaanayno oo ay in cadawga qawaariijta laga fogeeyo meeshan lagana qabto ummadda Soomaaliyeed dhibaatada uu ku hayo. sidoo kale waxaan kormeer ku sameynay difaacyada ciidamada ee guutada saddexaad howlgallada meelaha hadda aan ka galnay waxay ahaayeen ilaa 9 tuulo oo maxaan ku iraahdaa ay ka mid tahay Madaxgisi meesha la yiraahdo cadawguna waa iska sii cararayay mar walbaba wax hadda oo cadow la sheego oo maxaan ku iraahdaa awood leh ma jiro. Al-Shabaab waa qawaariij waxayna maxaan ku iraahdaa mar walbaba dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed iyagoo maxaan ku iraahdaa hantida shacabka Soomaaliyeed ka dhigtay beel iyo in maxaan ku iraahdaa hooyooyinka dhibaataysan ay dhacaan mar kastaba. taasna waxaan uga jawaabi doonaa ama uga jawaabnay marar badan howlgallo cadawga lagu baacsaday laguna laayay haddana waan wadi doonaa insha Allah midka hadda aan wadnay maalmahana wuxuu ahaa mid aan ku xaqiijinayno tuulooyinka hoos yimaada ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ee Jowhar iyo Balcad hoos yimaada. Ibrahim Ali Nuur TV Universal Jowhar.